xaafadda Howlwadaag oo ku guuleysatay koobka xaafadaha degmada Baraawe kadib guul dirqi ah ay ka gaartay dhigeeda xaafadda Dayax 3-2 ayayna kaga badisay ciyaartan oo ahayd mid aad u xiiso badan. Labada xaafadood ayaa soo bandhigay ciyaar aad u xiiso badnayd. Qaybta hore ciyaarta 1-0 oo ay ku hogaaminaysay xaafadda Howlwadaag ayaa lagu kala nastay. Qaybta labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Howlwadaag ayaa dhilisay 2 gool oo degdeg ah ciyaarta ayayna sidaasi ku noqotay 3-0 oo ay ku hogaaminayso Howlwadaag, balse xaafadda Dayax ayaa soo celisay 3 gool 2 ka mid ah goolashii loogu hogaaminayay ciyaarta. Ugu dambeyn ciyaartan ayaa ku soo idlaatay 3-2 oo ay Howlwadaag kaga adkaatay xaafadda Dayax, waxaana goobjoog ka ahaa gudoomiyaha maamulka degmada Baraawe Cumar Cabdullaahi Maxamed, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka xiriirka kubadda cagta degmada iyo mas'uuliyiinta loo soo wakiishay qabanqaabada tartankan oo ay si wadajir ah u maalgelinayay Somali John Fund iyo UNDP ayna fulinaysay Baraawe Women. Tartankan oo ujeedadiisu ahayd isdhexgalka bulshada iyo nabadeynta maamulka degmada Baraawe. Xiriirka kubadda cagta degmada ayaa si wadajir ah u guddoonsiiyey xaafadda Howlwadaag koobkii ay ku guuleysatay iyo abaalmarino kale oo la guddoonsiiyey ciyaartooyda ugu saameynta badnaa ee tartanka inta uu socday, iyo dhalinyaro ka qayb qaadatay baahinta tartanka ayaa la guddoonsiiyey abaalmarino ay ku muteysteen waxqabadkoodii inta uu socday tartanka xaafadaha degmada Baraawe. Koobka xaafadaha degmada Baraawe ayaa sanadkan waxaa ku guuleysatay xaafadda Howlwadaag. Maxamed Qadar Kuunyo, Barow TV, magaalada Baraawe.